كل قفك وحجرة أم وفانسان سومالي ذا وكجرا كل ماشي وحكرويين وكراديا ما أنت أدي ما أنت ساغي اوكي iga badanna waa siinayaa maamulka ololba soo gabadhanaan caawiya wax yar aniguna waan qada tegaya soo koob walaal way waxaan dhihi lahaay dadkaas marka Soomaaliya waxay yaqaaneen dabeecad ah marka la isku baaboo intaas oo kun qof la iska dilo intaas dad fiican oo maasha Allah la dudada waxa xuquuq masaakiin oo la baabiyo ka bacin gacanta la isgeliyo أنا كل تاس دقول ما وركا أنتو دبك أدو سيه العين اللي الدنيا في عن عم دي عند قال لوجو قنعيه عم قف قدر وقدر أنت هاي تذكر إنه كوري مادان إن إدهان هالكاس ورا أذا قدر إنك جوك مركي قبيل الوسي اللي حيله هاي dad muslim ahaan hay Soomaali ah isku hadal ah isku luqad ah dad isfahmeen oo isku luqadeen isku dhaqaneen hal isku soo dhaweeyaa fahant dadka bilaadka aqlaq saaxiibku ah way yaqaanin qofka qaldan أنا وعندي لا دكتور هاي قاتم معدة دور سنة كور وحد دولك وحد دوس على قوي وحرمنا مذهبناني دهاين طبعاً شان سنة كور ما فهمت مركز هدي وحندي لا سومال أنت دتك عند هن دولك أنا كأسكالة وحسكم مدرسنا إنه إن يكون فيريان حق ما فهمت حق بالأدين ماذا إن يبقى عويان وده ورش قبل ما دون كانت قفل غصب هو تيجي صوب بصو هذا واحد كتير الله يفوق كتير marka waa ka wayga sii degaya kulli waxaan ilaa dadkaas awgiyaha ah iyo dadka Soomaalida ah dadkaas si isku soo dhaweeylahay waxa laga shaqeeyo dib la sii dad dhibaato waxa siinaya iga badanaya siinaya oo maasantahay iga badan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalo sida qiimaha leh aad doodan u wadid aad baad ugu mahadsan tahay haddaan dooda u guda galo 5 qodob baan rabaa inaan ku taagsado qodobka koowaad horta dhulbahante sagaaro 2 tun oo la kala qaado ma leh dhulbahante waa dhulbahante qofkii raba inuu u kala qaado reer hebel iyo reer hebel adeer waxaas waana ka soo daalnay maantana waxaan door bidnay inaan ka naga dhimanayo inuu qiimo ku dhimanayo inaan ka taagan oo calanka saa u haysto iyo ninkii daraawiisho xabada isku dhigay maxaa la dhahaa falaarta isku dhigay adeer sambeeltu noo jooga ninka maanta raba marka inuu dhulbahante kala qaado adeer inta cagameeratiis ka seexo dhulbahante waa midoobay dal iyo dibadna diyaar wuxuu u yahay dadkooda iyo diintooda iyo maatadoodaba inay difaacaan taa qodobka halka iga dhig waxa ku soo haray Somaliland adeer aqligiina haduu yahay cunuga yar aad dhasheen inuu maxaa la dhahaa kugu jiifo istareex heera gurigoodana inta imaatid ilmahooda inaad dishid de taasi socon mayso inaan dagayay baa wuxuu ka hadashinay Somaliland qarax kama dhaco horta Somaliland ajandaheedu wuxuu yahay gobol walba oo Soomaali leedahay hadda Muqdisho kale ninkii ugu horeeyo argagixisada abaabulay waa la yaqaanaa Axmed Godan uu ahaa waa nin isaaqa halka uu rabo inuu ku cirib tiro Soomaali haddaad iga iibinaysid adeer calankaasna ma arki karo waan jarayaa qofkii maxaa la dhahaa qaata af macaana waan ku tusayaa de adeer waxa ma soconayso diin baa waxa la yiri waa lagu tashanay markaasuu yiri meeshii lagu tashanayso Ilaahay ma joogin markaasuu Ilaahay qolof ku soo rogay haddaad rabi laheeto hadday wax waliba noqoto laakiin haddii hadalkiina uu yahay wixii qurux badan aanu ideeqaayo ana iska leh jaabadana waa ku siinayaa de akhligaaga bato macrifadaadu yareeyaa taasaan uga baxay waxa ku soo haray waxay ku celceliyeen dadkan walaalaan nahay sidan baan nahay kan baan nahay horta khaatum nahay hubbaaleen nahay sidan baaleen ee dadka ka iibinayaan hadda hadalka u fiirsada 1.5 million US dollar bay ku luus gareeyeen dawladda maxaa la dhahaa
Sweden dhaqaale ay siin jirtay. Imagine marka wax walba proof walba markii loo geeyo hay'adii wax siin jirtay horta daadah baa la leeyahay. Taasi waa taa hal wax Somaliland waan kula heshiin karaa dhagoodana inay furaan ba aad iigu fiican. Halka waxaan kula heshiin karaa waxay tahay in calanka Soomaaliya laga taago Somaliland. wax Somaliland la dhahana aysan jiri doonin. Soomaalina inay mid tahay. Yes, halka wax waan kula heshiin karaa because anaa shalay lagu dilay, ragayga lagu dilay oo lagu dhaawaciyay. Yes, qodobka waan kula heshiin karaa. Laakiin ninka maanta filanayo inuu dhulbahanta kala googooyo ama kharash ku kala waxeen karo adeer waa kaaga dhamaatay. hooyaday baa waxay oran jirtay dooda Awdal State waa caawa dilayda صح libaax la tag bartay hooyaday baa waxay oran jirtay kadhig waa ku ceeb timekiina wuu guray hadaad rabteen inaad Soomaaliya qalqalisaan hadaad rabteen meel waliba adeer waa soo dhamaatay. Soomaalina waa kacday calankaas baana u dhintay. qof waliba argagixisay rabay dalka iyo diinta meel waliba uu joogo American, Sweden, Europe, everywhere uu joogay oo qurbane adeer wax waliba aad sameynaysid waa diirad baa saa ku saaran. hay'adda degdegaana lagu diibaya. Soomaalina waa mid ninkii ku quus qaadanaya iyo ninkaan ku quus qaadanaynin iyo ninkii irir Soomaale ugu hiilinaya maxaa la dhahaa reerahaas adeer sheekada waa fakatay. been fakatayna waxaa la yiri raad ma leh. waana ku salaamaya walaal hadalka waan dumaroowo waan Soomaali waa mid. salaam calaykum walaalayaal dooda Awdal State waxay dhacaysaa caawa 8 oo biira. qof kasta oo Awdal State waxa uu soo qaadanaya calankiisa kabacdi markaasaan soo qabanaynaa ayatinkiina ayaad ka hadlaysay. dooda waxa caawaya Awdal State xukunka Soomaaliland iyo jeceshiin oo tii haysanaysa waa lagu kala tagay dhulbaantana uu soo dhow yahay inuu dhul badan la wareego. marka 8 oo biira warbixintana TikTok hadda soo dhigi doona ogeysiiska 8 oo biira ayay dhici doontaa dooda Awdal State. qof kasta oo calanka Awdal State watana waa la soo qabanaya soo dooda uga qayb galo. gada bulshada kale taageersanayn Awdal State-na way soo qabsanayaan oo xor weeyaan. ololow gabadhan aan caawinaya hadda laba eray ku tuuranaysid waan ku salaamaya. ها ما والله بقرأ مرة يا سلطانه والقضية لا أصحانوت وقضية عادلة مثل هذا عربت. قضية عادلة معناها وحوية وقضية حق وحق هي باطل وحنا قلنا حيسا ضد صومالي نمر ربع. اسكب بلانكت كذا اي وحا كدغتي بلو عقل مساسا ربان ان يعني hadii aad tahay Soomaali oo Soomaalinimo u taagan tahay ma taageeri kartid maamulka Soomaalidiidka ay Hargeysa ka jira. adigiiba isburburinaya adigiiba waxa u taagan tahay burburinaya. qadiyadu ma aha qadiyad qabiil. haday noqoto mataqaana qabiilna de xaq ayaa taageeraysa. qabiil ba qabiil ku duulaya oo leh dhulkaagi baan ictiraaf ku helaya oo kaalay qasab iyo ku kaalay taasina wax dhici kara ma aha. waliba haduu cid ku dhici lahaa cid ugu fog inuu ku dhaco waa nimanka halgamayaasha nimanka Ingiriis la dagaalamay oo la halgamay oo diyaaradaha la dhacay oo Soomaali taariikhdeeda baaldahaba kaga yaal oo gumaysigii Soomaaliya meel iska dhigay oo xorriyad mumtaaz mulka kala walaalayaal ay haysato ugu wacan. marka ma haddaad taa hiilinaysidna xaqa inaa u hiilisid weeye ninka dhiigiisa u shubay Soomaaliya. Soomaaliya maxaa lagu dhaca qanaaq aad soo diraysanaa ninka walaal saxaabad baa tahay waayahay. waxaan samaynayaa walaalayaal gabadhan maanta dhan bayna sugaysay. waxaan doonayaa gabadhan in la caawiyo haddii la yidhaahdo arrinka Awdal State 8 oo biir ayay foodastari doonaan gada bulshada xalaasha iyo gada bulshada taageersan Soomaaliland. 8 oo biira qof kasta waa inuu soo qaataa calanka Awdal State. waxaana ka mas'uula ninka la yidhaahdo iyaga ayaa aanu soo korsiyo wiilka baaqa uu dirayo dadka taageersan Awdal State. Asha
caasha cabdi obsiya ayaan caawinaynaa hadda caasha intaanan barnaamijkeena gelin waxaan doonayaa caasha inay information dadka yar siiso dhibaatada haysata kabacdina 260 qof ayaa tiin qof kasta wuxuu u heli karaa